waa kaa marka saasaa wuxuu ku noqda marka 6 kaarboon iyo waxa waaye iyo mataqaanaa 6 hydrogen. Kaarboonadaas aan ognahay waxay leeyihiin mataqaanaa 4 dabar ama waxay leeyihiin 4 gacan ay leeyihiin kaarboonada sidoodiba maadaama 4 gacan ay leeyihiin gacan wuxuu ku haystaa kaarboonkan hadda 1 2 3 laba kaarboonkan 2 gacan uu ku haystaa kan wuxuu ka haystaa 1 gacan hal xabo aorta hydrogen haysto mid walbana saas waa marka dhammaan kaarboonada saas waa 3 gacan mataqaanaa 4 gacan uu leeyahay mid hydrogen haysato labadan waa kan kaarboonkan haysto kan afraadna waa kan 1 2 3 4 mid walba fiiri 1 2 3 4 saas ku buuxa marka saana loo sawiraa marka benzene wuxuu yiri marka the coolest structure of benzene consists of marka alternating single and double carbon to carbon bond waa saan sheegno waay macnaa wuxuu yeelanaa uu yiri alternating single and double carbon to carbon bond kaarboonada waxay yeelanayaan marna wuxuu noqonayaa kaarboon wuxuu ku haysanayaa double bond marna wuxuu ku haysanayaa single bond waa ka the structure of benzene qaab dhismeedka benzene is better represented waxaa si wanaagsan loogu soo bandhigi karaa by the following resonance structure resonance-gaani ama qaabkan loo yaqaan resonance waxaa la lahaa isku dhis mataqaana isku qaab ah ama isku dhis mataqaanaa same molecular formula ah laakiin mataqaanaa structure-kooda u kala duwanaanayo like wuxuu noqonayaa sida mataqaanaa hore aan soo baranay oo kale isomerism oo kale hadda saan ognahay maxaa la yidhahdaa benzene waxaan yidhi wuxuu ka kooban yahay 6 kaarboon iyo wuxuu ka kooban yahay 6 hydrogen uu ka kooban yahay soo ma laakiin markaas sawir laba qaab u sabir karnaa waa ka mar saana u sabirnay mar saana u sabirnay wax weyn difference badan uma dhaxeeya fiiri mar walbo mataqaanaa inta meesha single bond ku ahayd inta markaa timaad double bond ka dhig meesha double bond ahayd inta markaa timaad single bond ka dhig waa ka intaas un waaye si kale isku mid ka yihiin aan hore u socono today benzene is often represented with a shortened notation wuxuu yiri maanta benziinka waxaa loo soo bandhigi karaa shortened notation mataqaanaa sumadan ayaa loo soo gaabiyaa sumad maxay tahay waa kan waxaa samaynaysaa hexagon samaynaysaa ama 6 gees samaynaysaa waa kan 6 gees markaa sameeyid isdhaaf double bond u siinaysaa marka inta hadii single ka dhigtid kan double ka dhigtid single ka dhigtid kan double saana loo sawir karaa ama 6 gees markaa sameeyid dhammaan wareeg geli labadan qaab ayaa loo sawir karaa hadda benzene waa kan wuxuu yiri marka each point in the hexagon point walba ambar walba ka mid ah 6 geesoodkan represents waxay u taagan tahay a carbon atom with a hydrogen atom uu ku dhagan yahay hydrogen halkan imow markaa inta timaadid marka meel walba wuxuu ku dhahay hexagon ka mid ah waxaa yaala maxaan ku iraahdaa waxaa yaala carbon ay ku dhagan tahay hydrogen marka inta uu yaalaa saas u taagan yahay marka kan like this waa okay waxaa imaanaysaa marka wuxuu yiri each point in hexagon point walba ka mid ah 6 geesoodkan represents wuxuu u taagan yahay a carbon atom with a hydrogen atom attached carbon atom lagu dhajiyay hydrogen atom ayuu u taagan yahay the ring structure of benzene waxaa la yiri marka wareegan qaab dhismeedka benziinka uu leeyahay waxaa laga helaa in many organic compound isku dhisi badan oo mataqaanaa ayaa laga helaa marka organic ah waxaa imaanaysaa markaan classification of benzene kala qaybinta benzene are classified benzene waa la kala qaybiya inta waxaa loo qaybiyaa monosubstituted benzene disubstituted benzene iyo polysubstituted benzene maxay kala yihiin marka benziinka haddii mataqaanaa hydrogenada ku jira ama hydrogenka 6 hydrogen oo wato haddii hal xabo ka mid ah uu bixiyo oo mid wax kala bedel lagu keeno isku dhis kale la keeno for example 6 hydrogen aan haysanay midaa la bixiyo maxaa noo haray 5 bedelkeeda waxaa naloo keenay halogenes oo kale fluorine aa naloo keenay ama bromine ama mataqaanaa iodine ama chlorine aa lagu keenay hal hydrogen haddaa bedesho waxaa loo yaqaanaa monosubstituted waa goorma marka hal hydrogen la bedelo waa haddii laba la bedelo waxaan leenahay disubstituted benzene haddii laba wax ka badan la bedelo waxaan leenahay polysubstituted benzene waxaan rajeynaa inaad fahanteen monoga imo marka monosubstituted benzene mono ereygaas waa taqaanin hal waaye substitute bedelka waaye marka waa kan these are benzenes kuwan waa benzene in which kuwaaso only one of hydrogen hal hydrogen atom ayaa has been substituted ujeedaa kaliya waxaa la bedelay hal hydrogen ayaa la bedelay waa kan
tusaale ayaan ka arki doonaa. Waa kaan ujeedino meel walba waxaan niri mataqaana hexagon ka mid ahaa waxaa ku dhegnaay carbon iyo hydrogen. hadda halkan waxaa lagu dhejiyey marka waxaa lagu dhejiyey bromine marka waxay ka dhigan tahay hydrogenta meesha waa laga saara marka booska waxaa kala baxay bromine hal hydrogen aa la bixiyey mataqaana marka wuxuu noqonayaa wax loo yaqaano monosubstituted. maxaa u niri monosubstituted hal hydrogen un baa la bixiyey hal booskeedna waxaa soo gashay bromine ayaa soo gashay. intana waa kan hydrogen aa laga saaray waxaa soo galay ethyl marka waxaa loo yaqaanaa bromo benzene kana waxaa leenahay ethyl benzene. marka waxaan rajayn aad fahanteen wax weyn lama sameyn meel kasta waxaa niri waxaa lix geesood meel kasta waxaa ku dhegnaa hal carbon hal hydrogen soo ma carbon hydrogen carbon hydrogen carbon hydrogenta waa la bixiyey markaan booskada waxaa la keenay br aa la keenay hydrogen ma taalo meeqaa la bixiyey marka guud ahaan hal xabaa la bixiyey haddii hal la bixiyey waa monosubstituted kan like mataqaanaa kan oo kale waa isna waa ka hydrogen inta laga saaray waxaa la keenay ethyl aa la keenay kan waxaa loo yaqaanaa marka waxaan ku idhahdaa monosubstituted labaad waxa waaye disubstituted buuggan wuxuu qorayaa distributed uu qoraa distributed qalad waaye waxaa loo baahan yahay in laga dhigo meeshan disubstituted benzene ka dhig. these are kuwan benzenes waaye in which kuwaasoo two hydrogen atom have been substituted kanna waxaa laga bedelay laba hydrogen aa laga bedelay waa ka keedaha waxaa ereyga die sidiisa waa labo waa ka these are benzenes kuwan waa benzene in which two hydrogen laba hydrogen atom ayaa have been substituted la bedelay aa la bixiyo marka lix hydrogen aa haysanay labadna laga bixiyo maxaa noo haray laba leeb noo harayso maya waxaa noo afar aa noo harayso waa ka hadda kan inta carbon iyo hydrogen aan ku ogeyn hydrogenta waa la tuuray carbon sidiisa u yaala carbonka waxaa ku dhegan chlorine aa ku dhegan kow hal xabaa laga tuuray intana waxaa la keenay ethyl aa la keenay hal xabaa laga tuuray saas daraadeed marka maadaama laba hydrogen la bixiyey oo booskoodna meel chlorine la keenay meelna waxaa la keenay ethyl wuxuu noqonaa marka disubstituted uu noqonaa marka magacaabaynin boosko waxaa ku dhegan chlorine aa ku dhegan labo saddexna waxaa ku dhegan ethyl waxaan leenahay marka one chloro three ethyl benzene kanna saasuu lamid yahay marka laba xabaa laga bedel mujeedin waa ka hal hydrogen aa la bixiyey bromine aa la keenay midkaa la bixiyey waxaa la keenay iodine magacow one bromo two iodobenzene wuxuu yidhi marka die waa inta die substituted waa benzeneka oo laba hydrogen laga bedelay exhibit wuxuu jiri karaa three possible positional isomerism isomerismkiisa wuxuu noqonayaa saddex mataqaanaa ayuu noqon karaa saddex maxay kala ahaanaya marka inaan ku dhejino kan koowaad iyo kan labaad markaas waxaan ku magacaabeynaa ortho bedelka aan keennay hydrogenka maadaama aan bedelnay laba hydrogen aan bedelnay laba kale aan keennay haddii labada meel aan ka bedelnay ay boos koowaad iyo boos labaad wax ka bedelno ortho waay haddii boos koowaad iyo booska mataqaanaa saddexaad aan hydrogentooda tuurnay aan wax kala keensanay waa booska koowaad iyo boos saddexaade meta ayaa loo yaqaanaa haddii booska koowaad iyo booska afaraadna aan hydrogenada ka tuurno oo aan booskooda wax kala soo gelino wuxuu noqonayaa marka para kow iyo labo ortho ayaa lahaa maxaan ku yidhahdaa laba iyo saddex waa meto sorry kow iyo labo waa ortho kow iyo saddex waa meta kow iyo afarna waa para waxaan rajeynaya inaad fahanteen ka u dambeeya waxa waaye polysubstituted benzene waa benzene laga bedelay wax ka badan laba hydrogen these are benzenes kuwan waa benzene in which more than two hydrogen wax ka badan laba hydrogen atom has been substituted ayaa la bedelay waa ka tusaalaha kow labo saddex meel laga bedelay marka saddex meel ayaa laga bedelay marka waa ka